tobankii bilood ee la soo dhaafay birta ayay isku tumanayeen kadib dhinacyadu dagaal foolka fool ayaa ka dhex qarxay hadda TPLF iyo dawladda dhexe ee Itoobiya. xiisadda labada dhinac ayaa si toos ah faraha uga baxday oo isku beddeshay guluf carcartiisa wata iyo colaad aan waxba la isku reeman oo dhammaadkeeda aan si fudud loo saadaalin karin. dagaal saacado badan socday saansaantiisana weli la sii dareemayo ayaa toos u dhex maray labada geesoodka. xaaladuna cirka ayay isku shareertay. ka qaybgalka xuduudaha gobolka ayaana furan, taasoo macnahan ka dhigan in dagaalka TPLF iyo Itoobiya u dhexeeya uu hadda xargaha sii goosanayo. TPLF waxay ku doodaysaa in dhinaceeda lagu qaaday weerar dagaal iyo inaan daasi kaga yimid dhinaca federaalka Itoobiya, halka ciidanka dawladdu sheegeen in iyaga la soo weeraray oo ay gadaal duulaana uga yimaadeen koox ka tirsan TPLF, taasoo ay sheegeen inay ka soo horjeedo amniga iyo deganaanshaha Itoobiya. Jabintan waxaynu ku eegaynaa dagaalka labada dhinac, khasaaraha kala gaaray, dhulka la kala qabsaday iyo wax xilligan ku beegay inuu qarxo gulufka dagaal ee Itoobiya. TPLF yaabi oo ugu dambayn toddobaadkan dagaalkooda mar kale iswajahay. tan iyo bartamihii sanadkii hore waxay saadaalayaashu tabinayeen in Itoobiya ay colaad foolanayso, isla markaana dhinacyadu ay ku jiraan diyaar garow dagaal oo xoog leh. inkastoo la filaya in dagaalku qarxo xilli aad u horeeya, haddana ugu dambayntii galinkii hore ee shalay xuduudda Suudaan iyo Itoobiya oo hadda laga helayo faahfaahin ku wajahan sababaha iyo khasaaraha dagaalka ayaa halkaasi ka qarxay xilli wadamada darisku ay si weyn u quldaraynayeen, gaar ahaanna kuwa Abiy Ahmed hadda ishayaan in dagaalku uu noqdo mid gudaha Itoobiya si laxad leh ugu faafaa. sida ay xogaha gudaha Itoobiya sheegayaan, waa dagaalkan ahaa kii hore ee dhinacyada u dhex maray. waxaa la isku adeegsanaya hub culus oo gantaalaha, ficilada goobta ee duqeymaha culus ee meelaha fog laga haga iyo diyaaradaha droonta ay qayb laxaad la dagaalkan ka qaadanaya. TPLF oo dagaalkan war ka soo saartay waxay dawladda dhexe ee Itoobiya ku eedeysay in iyadu ahayd ciddii weerarkii dhacay bilowday, waxayna sheegtay inay si degdeg ah u bixin doonto jawaab xooggan oo ay la eeganayso ciidanka federaalka ee Itoobiya. kooxda TPLF waxa ay ku eedeeyeen ciidanka militariga ee Itoobiya adeegsiga diyaarada aan duuliyahayn oo ay sheegeen in yoolka kama dambaysta ay ka leeyihiin ay ahayd inay abuuraan inay ka adkaadaan kooxda TPLF. dhinaca kale, warbaahinta Itoobiya ayaa sheegtay in dagaalku uu qarxay markii ciidanka federaalku ay gacanta ku dhigeen 4 sargaal oo waddanka Suudaan u dhashay kana soo gudbay xuduudda labada dhinac, kuwaasoo Addis Ababa ay rumaysan tahay inay ahayn saraakiil loogu talagalay inay tababaro siiyaan ciidamo ay diyaarinayeen kooxda TPLF oo la doonayay inay duulaan toos la galaan dhinaca dawladda dhexe ee Itoobiya. diyaaradaha dagaalka Itoobiya ay xoguhu tibaaxayaan in duqeymo xooggan ka geysteen goob ay ku sugan yihiin xoogaga Tigray, kuwaasoo ay ka mid yihiin saldhigyadii saadka ee galbeedka gobolka Tigray oo la gaarsiiyey waxyeello xooggan kadib duqeymihii dhinaca cirka ee dhacay saacadihii la soo dhaafay. sidoo kale, militariga Itoobiya waxay sheegeen in isku fidiyeen dhul kale oo hor leh, kaasoo ay ka baxeen dagaalyahanada TPLF oo la saaray culays xoog leh, gaar ahaan dhinaca dhirka oo lagu soo kiciyey diyaaradaha dagaalka oo ilaa hadda hawada deegaanadaasi gaaf wareegaya. TPLF dagaal ragaal culisa ay isku diyaarinaysaa. kooxda Tigrayga ugu xoogga badan ee TPLF waxay soo saartay warmurtiyeed ay kaga hadashay dagaalka. waxay sheegtay inay doonayso inay dib ugu laabato furinta dagaalka. waxay ku eedaysay xukunka Aradkiilo inay nabadgelyo darro abuurayaan, isla markaana ay doonayaan in Itoobiya ay dib ugu jiidaan dagaaladii gobolkaasi uu ka soo kabanayay muddooyinkii la soo dhaafay. waxayna ku eedeeyeen in gebi ahaantoodba ay doonayaan in dagaalka ay ka dhigaan mid dhinacyo badan ay ku lug leeyihiin, iyagoo TPLF beeniyey inay haba yaraatee wax luga ku leeyihiin taageero ay ka helayaan dhinaca xukuumadda dunidu aqoonsantahay oo garwadeenka ka yahay Janaal Cabdifatax al-Burhaanu ee gudaha Suudaan. TPLF waxay hore u sheegtay in guud ahaanba uu burburay heshiiskii 3 sano ka hor lagu galay dalka Koonfur Afrika ee dhinacyada Tigrayga iyo dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya, kaasoo ay garwadeen ka hayeen Midowga Afrika iyo dalal kale oo saameyn ku lahaa arrinkan. kooxdu waxay si rasmi hadda ugu dhawaaqday inay samayn doonaan weerar ragaal culis oo ay ku ekeyn doonaan dhammaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka federaalka ee Itoobiya, gaar ahaan kuwa fariisimaha kule gudaha gobolka Tigray. shirka isdabajooga iyo abaabulka ciidan ayaa socday maalmihii la soo dhaafay kooxdan gudaheeda. yoolkooduna waxay ku sheegeen inay doonayaan sida ay uga adkaan lahaayeen xukunka Aradkiilo ee Itoobiya, waxay doonayaan inay meesha ka saaraan. sida ka muuqata war-saxaafadeedyada ama laga dhex arkayo hadallada kala duwan ee TPLF, kooxdani waxay isku diyaarinaysaa qaadida guluf xoog leh oo aysan keligeed lahayn aragtida kama dambaysta ee ay la leeyihiin wadamo kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa gobolka. xogaha qaar ayaa tilmaamaya in kooxdan hadda abaabulaysa dagaal ay ka furto dhinaca xuduudka Eritrea, halkaasoo ay u aragtay inuu yahay goob ay ka heli karta gabaad xooggan oo ay kaga dhuuman karto weerarada kaga yimaada dhinaca ciidanka dawladda
maadaama cismara hadda si buuxda u taageersan tahay kooxdii hay horey dagaalka ula gashay ee TPLF taasoo ay u aragtay inay tahay mid lagu weeqi karo awoodda Abiy Ahmed meeshana looga saari karo damciisa baddoonka aan firiirka ku riday dhammaan dalalka gobolka Geeska Afrika. khasaaraha dagaalkan ka dhashay waxa ilaa hadda wararku tibaaxayaan inuu yahay mid badan oo gaadi laga gubay TPLF iyo in kooxdani meelaha qaarkood dib ay uga guratay iyagoo ka fogaanaya culays kaga imaanaya dhinaca federaalka Itoobiya oo si weyn loogu daabulay galbeedka gobolkan gaar ahaan goobihii uu shalay dagaalku ka dhacaya. maxaa keenay in Abiy Ahmed xilligan uu dagaal ku qaado TPLF inkastoo nabarka dagaalkan shalay uu ahaa mid la wada filayay haddana isweydiintu waxa ay tahay waxa soo dadajiyay waqtigan warcelinta weydiintani waxay noqonaysaa in mid wajiye badan yeelanaysa hal sabab oo aan ku koobnayna ma aha waxaana lagu qeexi karin hal arrin oo kaliya waa